السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرين جنال كمركز السود وهذا أدي هذا وما تسنتهين ما أنت واثنين طبعا تضبط بيش صدق هذا ماتش سنة كلابا كن يشان يلا باتنك وقال كان محربا إن إذا كل وداجو شرعية وترام أذيك سديس ومسافريو dadka soo galootiga sharci la'aanta gaar ahaan kuwa gaangiska ee wadanka dhibaatada ku hayo oo muran dhaliyay sharcigaasi muxuu yahay masal laga yaabaa haddii uu u dhaqan galo in dhammaan dadka wadanka sharci darada ku soo galay uu u adeegsado sharcigaasi arrintaasi ayaan rabaa inaan idinla wadaago oo waliba dadkii ugu horeeyay lagu masaafuriyay doorashada uu ku jiray in uu dhowr jeer yiri waxaan isticmaalayaa sharciga la yiraahdo Alien Enemy Act oo la sameeyay 1798 isla markaana waxa aan ku masaafurinayaa dadka soo galootiga sharci darada ah sharcigaasi horta muxuu yahay dadkan ugu horeeyay oo sabtidii lagu masaafuriyay maxay yihiin iyadoo waliba garsoorana uu ka hor yimid waxa sharcigan Alien Enemy Act uu yahay sharci loogu talagalay wadanka Mareykanka haddii uu dagaal ku jiro in la adeegsado amaba wadan ajnabi ah haddii uu dagaal ku soo qaado dagaalku uu socdo in sharcigan madaxweynuhu awood uu u leeyahay inuu adeegsado sidoo kalena haddii wadan uu u soo hanjabo Mareykanka uu yiraahdo waan idin soo weeraraynaa madaxweynuhu wuu adeegsan karaa laakiin Trump hadda waxa uu ku adkeysanayaa inuu awood u leeyahay in uu sharcigan adeegsado sabtidii ayuu sharcigan sheegay Trump in uu adeegsaday markaas kadibna aan 3 diyaaradood oo ay saaran yihiin 137 dad wadanka Venezuela u dhashay kooxaha gaangiska oo Trenta de Aragua oo TDL loo soo gaabiyo gaangiska ayuu noqday dadkii ugu horeeyay oo ku masaafuriyo diyaaradahaasi markii ay baxeen oo hawada ay ku sii jiraan ayaa garsoore federaal ah oo la yiraahdo James Bousbecq amar uu soo saaray si ku meel gaar ah waxa uu yiri waa in la joojiyaa masaafurinta sharcigaasi loo adeegsanayo waxaana loogu talagalay yiri sharcigaasi xilliga dagaal uu Mareykanku uu ku jiro marka si ku meel gaar ah ayuu waxa uu yiri masaafurinta lagu sameynayo qof kasta oo aan Mareykanka u dhalan oo xabsi ku jira ama sidoo kalena removal in wadanka laga saaro wajahaya iyadoo sharcigaasi loo adeegsanayo ugu yaraan muddo 14 maalmood wadanka laga masaafuri karo marka diyaaradahaasi hawada ay ku sii jireen marka garsooraha amarka uu soo saaray garsooruhu waxa uu amar ku bixiyay haddii ay jirto diyaarad hadda fadhiso oo doole rabta kuwa hawada ku jirana in la soo celiyo kuwii kici lahaana la joojiyo laakiin maamulka Trump waa ay iska dhigatireen waxay yiraahdeen diyaaradahaasi already waa ay baxeen hawada Mareykankana waa ay ka baxeen mana soo celinayno garsoorihii amarkiisi wayba ka hor imaadeenba marka 3 diyaarad oo kooxaha gaangiska ee wadanka Venezuela ka yimid sida maamulka Trump uu sheegayo oo Trenta de Aragua maadaama Trump uu kooxahaasi u aqoonsaday kooxaha argagixisay inay yihiin dhamaanba gaangiska iyo burcadda iyo kooxaha hubka ka ganacsada kuwa darooda ka ganacsada dhamaantoodba ururo ajnabi ah oo argagixiso ayuu u aqoonsaday wareegtooyinka uu saxiixay Trump markii uu xilka la wareegay ayay ku jireen marka waxay yiraahdeen diyaaradahaasi hawada ayay ku sii jiraan hawada Mareykankana waa ay ka baxeen hawada caalamiga ah ay ku jiraan mana soo celineen haddaba diyaaradahaasi marka waxa laga dajiyay wadanka El Salvador sidoo kale madaxweynaha wadankaasi Nayib Bukele ayaa bartiisa X waxa uu ku soo qoray oops too late malaha waa la soo daahay garsooraha wuxuu leeyahay amarkan waa la soo daahday waxaan ognahay bishii February wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Marco Rubio iyo madaxweynaha wadankaasi Nayib Bukele in heshiis soo wada galeen oo ah inay aqbalayaan in maxaabiistaasi dadka Mareykanku uu soo masaafurinaya gaar ahaan kuwa gaangiska ah xabsi weyn oo waxa la yiraahdo Supermax la yiraahdo oo 4 sano ka hor madaxweynaha wadankaasi uu sameeyay oo kooxihii gaangiskii wadankaasi uu dhamaanba uu ku xiray marka waxa ay El Salvador ogolaatay 300 oo kooxahaasi gaangiska in muddo sanad ay xabsigaasi ku hayaan Mareykankuna $6 milyan ayuu ku siinaya waa kuwan maxaabiistii markii la geeyay airportka 3 diyaarad oo fadhiso adarkaysaan markaas kadib gawaari fara badan ayaa galbisay xabsiga ayaa la geeyay markii xabsiga la geeyay waa tan iyadoo saf la geliyay madaxa laga xiray dhar cadna loo geliyay oo waliba silsilado gacmaha xabadka ilaa lugaha looga xiray marka sidaasi ayaa lagu geeyay xabsiga marka arintan waxa ay dhalisay sababta Mareykanku uu sharcigan Trump uu adeegsanayo Trump waxa uu leeyahay hadda Venezuela dagaal kulama jira Mareykanka laakiin Trump waxa uu leeyahay waxa weerar nagu soo qaaday kooxaha gaangisa oo maamulkii Biden uu wadanka u ogolaaday sidaas darteed waa inaan wadanka ka sifeynaa kooxahaasi gaangiska
oo duulaanka nagu soo qaaday. Waa sida Trump uu hadalkiisa u dhigayo. Marka sharcigan hadda ka hor taariikhda Mareykanka oo 250 jirsanaya sanadkan ayaa 3 jeer oo kaliya ayaa la isticmaalay. Dagaalkii 1812 iyo sidoo kalena dagaalkii koowaad ee adduunka iyo dagaalkii labaad ee adduunka, 3daasi jeer oo kaliya ayaa la isticmaalay. Xilligii ugu dambeysay oo la isticmaalana waxay ahayd 1942 ilaa 46 ilaa iyo 31,000 oo dadkii u dhashay wadamada Japan, Jarmalka iyo Itaaliya markii ay Jabaaniisku ay duqeeyeen Pearl Harbor 1941 markaasi ayay ahayd xilligii ugu dambeysay oo la isticmaalo sharcigan. Marka aqalka cad waxay yiraahdeen in kooxahan gaangiska oo qatar ku ah sida haweeneyda afayeenka aqalka cad Caroline Levitt ay sheegtay dadkan gaangiska ee TDA oo Venezuela ka yimid oo qatar ku ah ammaanka qaranka Mareykanka iyo ammaanka shacabka in la masaafuriyo ma ahan, maxaa yeelay wadanka ayaaba nabad noqonaya. Sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda waa uu difaacay ninka Trump uu xil saaray arrimaha xadka iyo masaafurinta oo la yiraahdo Tom Homan. Isaguna waxa uu yiri ma ka fikiraya, ayuu yiri waxa uu qareen yiraahdo, waxa uu difaacay diyaaradahan dadkan siday kooxahan gaangiska ee wadanka El Salvador la geeyay. Marka sidoo kalena madaxweynihii Ronald Reagan 1988 raaligelin ayuu ka bixiyay sharcigan markii la adeegsaday 1942 ilaa 46 waxaana uu sheegay arrintaasi cadaalad darro inay ahayd. Marka hadda Trump marka sharcigan waxa uu leeyahay anigu awood ayaan u leeyahay inaan adeegsado. Hadda waa laga hor yimid garsoorahan, waa kan ka hor yimid, dacwado fara badan ayaa laga gudbiyey. Laakiin sida muuqata Trump marka haddii arrintan ay u dhaqan gasho waxa uu doonayaa dhammaanba dadka ajnabiga ah ee wadanka sharci darrada ku soo galay inuu sharcigan Alien Enemy Act oo 1798 inuu adeegsado. Waa suuragal Trump hadda haddii arrintan kooxahan gaangiska uu ku tijaabiyo ay u suura gasho waxa uu doonayaa inuu sidoo kale sii wado oo dhammaan dadka soo galootiga. Marka sharcigan madaxweynuhu markuu adeegsado waxa uu dhigayaa qofka marka la soo xiro isla markiiba iyadoo wadooyinkii sharciga oo garsoore aan la horgeynin oo kiiskiisa uusan dhageysanin in si degdeg ah lagu masaafurin karo. Wadooyinkii sharciga ee dhinaca immigrationka iyadoon loo marin ayuu dhigayaa sharcigan in si degdeg ah lagu masaafurin karo, in dadkaasi marka la soo qabto isla markiiba horey diyaarad laga saari karo, horey laga masaafurin karo. Marka haddii madaxweynaha ay u suura gasho micnaheedu waxay tahay inuu doonayo inuu sharcigan dhammaanba dadka soo galootiga sharci darrada oo u isticmaalo. Hadda isagu waxa uu leeyahay kooxaha gaangiska wuxuu yiri xabsiyadii wadamada kale ayaa la soo faaruujiyay, dhammaanba dadkii dambiilayaasha ayaa anaga wadankeena loo soo diray, sidaa darteed waxaan doonaynaa inaan inaguna iska nadiifino. Marka arrintaasi ayaa 3 maalmood ee la soo dhaafay wadanka warbaahinta Mareykanka iyo kuwa caalamkuba ay si weyn uga hadlayeen. Trump maadaama Sabtida iyo Axadda uu fasax ku aado qasrigiisa Mar-a-Lago oo Florida ku yaala, waxaa maanta markii uu soo laabtayna uu difaacay go'aankan oo wuxuu yiri awood ayaan u leeyahay in aan sharcigan adeegsado. Marka wayna arki doonaan maadaama hadda garsoore uu ka hor istaagay, garsoorihii amarkiisii la iska dhigatiray oo diyaaradii hawada ku jiray la soo celin waayey oo safarkoodii ay sii wateen oo wadanka El Salvador la geeyey, ma diyaarado kale ayaa jiri doona oo maamulkan isagoo sharcigan adeegsanaya uu dadkaasi ku masaafurin doonaa. walow wasaaradda cadaaladdu ay leedahay garsooraha amarkiisa racfaan ayaan ka qaadanayna already ayba ka qaateen maadaama wasaaradda cadaaladdu ay tahay tan difaacaysa waxyaabaha dowladda federaalku ay samayso. waxyaabaha kale ee soo kordha waan idila soo socodsiin doonaa. aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta. intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin Cilmi Waaro idinla sida iyo nabadgelyo.